Halkani waa warbixinta GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Harada Nigat oo ka dhalatay mashruuca biyo-xidheenka weyn ee webiga Abay ayaa sanadkii miisaaniyadda la soo gabagabeeyey laga helay in ka badan 10,700 tan oo kalluun ah, sida uu sheegayo xafiiska beeraha ee Benishangul Gumuz. Haradan weyn ee samayska ah dhalinta quwadda korontada iyo dalxiiska ka sokow waxay abuurtay fursado shaqo oo badan oo ku saabsan kalluumaysiga. Harada Nigat waxay ka kooban tahay 70 jasiiradood, taasi oo ka dhigan tahay meel dalxiis iyo madadaalo ku habboon. Waxay noqotay ilo dhaqaale oo cusub oo dadka deegaanka iyo gobolkaba ee u horseeday horumar. Dhanka kalluumaysiga iyo shaqo abuurka, waxaa ka shaqeynaya 46 urur oo kalluumaysi ah ee abaabulan. Sanadkii la soo gabagabeeyey Harada Nigat oo kaliya ah ayaa soo saartay 11,099 tan kalluun, taasi oo muujinaysa horumar weyn ee marka la eego sanadkii hore. Kalluunka waxaa loo suuqa geeyaa magaalada Addis Ababa iyo magaalooyinka kale, taasi oo noqotay ilo dakhli muhiim ah. Shaqo abuurka kalluumaysiga ah ayaa si gaar ah u taabanaya dhalinyarada, kuwaasi oo ka helay nolol iyo taageero qoyskooda. Faa'iidooyinka deegaanka waxay kor u qaadaysaa dalxiiska gudaha iyo gaadiidka biyaha. Waxay ka qayb qaadataa ilaalinta noolaha deegaanka iyo isdheelitirka cimilada. Qoraalkan wuxuu muujinayaa sida Harada Nigat ay uga soo baxday mashruuca korontada, una noqotay il dhaqaale, shaqo abuur iyo dalxiis. Itoobiya, buundada aqoonta, nabadda iyo horumarka ah ee bariga Afrika. Xuduudaha waa xariiqyo lagu sawiray khariidadda, laakiin nolosha dadka mararka qaarkood waxay noqdaan buundooyin kobciya walaaltinimada. Isaga oo ku koray xuduudda u dhaxaysa Koonfurta Suudaan iyo Itoobiya, waa Nixon Anthony wuxuu xuduudaha u yaqaana ma aha xariiqyo kala go'ah, laakiin waa xariiqyo isgaarsiineed. Markii uu yaraa wuxuu ku koray isagoo fiirinaya isku xirka suuqa, isku ekaanshaha dhaqanka, isku soo dhawaanshaha luqadda, iyo wax walba ka sarreeya kalsoonida dabiiciga ah ee u dhaxaysa tuulooyinka ku teedsan xuduudaha. Sidaasi darteeda, Itoobiya waxay noqotay waddan maskaxdiisa ku abuuray dareen gurigiisii labaad, halkii ay ka ahaan lahayd waddan diris ah. Duquranbasa oo loola jeedo libaax madow, isbitaalka kaliya ah lama oran karo, balse waa xarun aqooneed ee gobolka Geeska Afrika. Nixon Anthony laakiin weligiisa ma uusan qiyaasin in xasuusta caruurnimadiisa ay maalin un qaabayn doonto jidka noloshiisa maanta ee dhakhtarnimada. Dr. Nixon Anthony wuxuu ku raad jooga takhasuskiisa qalinjabinta ah, isagoo ka mid ah ardayda ee isbitaalka Duquranbasa, kulliyadda sayniska caafimaadka ee jaamacadda Addis Ababa. Walaalnimada iyo wada noolaanshaha uu ka arkay caruurnimadiisa xuduudda hadda waxaa lagu dhisaya aqoon iyo xirfad badbaadinaysa nolosha. Dadka walaalaha oo ku arkay caruurnimadiisa xuduudda hadda waxay noqotay xirfad badbaadinaysa nolosha oo ku jirta gacmihiisa. Haddaba arrintan kaliya ma aha guul xirfadeed oo hal qof ah. Waa taariikh ee dadka ay abuuri karaan marka wadamadu ay isku yimaadaan si is-aaminsanaan. Waxbarashada ay Itoobiya halkan ku bixinayso ma aha kaliya shahaado, sidoo kale waa mas'uuliyad dhakhtar ah. Maanta lagu tababaraya Addis Ababa ayaa badbaadin kara kumanaan nolol oo berri Jubba, Kigali ama Muqdisho. Marka waxbarashada lagu bixinayo fasalka maanta, waxay noqon kartaa nolosha dad fara badan in lagu badbaadiyo berri wadamo kale. Tani waa wax loogu yeero horumarinta kheyraadka aadanaha ee iskaashiga leh, kaasi oo ka baxsan arrimaha siyaasadda. Marka qorraxdu dhacdo, dhaqaatiir da'yar oo xiran kaabooyin cad
ayaa la arki kara iyagoo si xawli ah ugu socda marinada isbitaalka Tuqurabasa. Way adag tahay in qof kasta oo meel fog ka arkaya amaba ka daawanaya oo uu sheego cidda Itoobiyaanka ah, cidda Koonfurta Suudaan ah ama cidda Rwanda. Dhammaantooda waxay ku hadlaan isku luqad, dhammaantooda waxay leeyihiin yool isku mid ah: badbaadinta nolosha. Sawirkani wuxuu iftiiminayaa cutubka cusub ee iskaashiga ee Itoobiya ay ka dhisayso gobolka Bariga Afrika. Maanta in ka badan 430 dhakhaatiir oo ka socda wadamada deriska ah ayaa tababar takhasus ah iyo takhasus gaar ah oo bilaash ah ku qaadanaya 19 machad oo waxbarasho sare oo ku yaala Itoobiya. 105 dhakhaatiir oo ka qalin jebiyay ayaa ku laabtay dalkooda si ay ugu adeegaan dadkooda. Hogaamiyaasha Xuutiyiinta Yemen ayaa digniinta ugu dambeysay ee u direen boqortooyada Sacuudiga, isagoo ugu digay haddii Sacuudiga sii wadaan amaba ay kordhiyaan weerarada ka dhanka ah ee Yemen, Xuutiyiintuna ay weerari doonaan goobaha shidaalka ah iyo kaabayaasha muhiimka ah ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Waxayna yiraahdeen waxay maalin cad ah weerareen garoonka diyaaradaha Sanca iyagoo haba yaraatee wax cudurdaar haysanin. Dabadeedna waxay naga filayaan in aan wax jawaab ah aanu bixin. Haddii aad garaacdaan Sanca, annaguna waxaan garaaceynaa Riyaad. Haddii aad weerartaan dikadeena, annaguna waxaan weerareynaa dikadihiina. Haddii ay isku daydaan inaad na go'doomisaan, annaguna waan idin go'doominaynaa. Maxaad u doonaysaan inaad na go'doomisaan oo aad gaajo nagu dishaan? Mar dambe gardaradiina uma dulqaadan doono, mana aqbali doono.